marka xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xaq ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nabigeenu calayhi salaatu wassalaam asxaabtiisa waa kii ku yidhi markay mu'miniintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wacala ku odhan doonaa turiiduuna shay-an asiidukum ma rabtaan ma aragtaane waxaan jannadan ahayn oo iniga maqan oo iniigu daro markaasay mu'miniintii jannada la geliyay odhanayaan alam tubayid wujuuhana yaa rabbi miyaanad wajiyaalkayga noo iftiimin wa tunajjinaa min annaar naartaadiina miyaanad naga badbaadin oo naga ilaalin wa tudkhilna aljanna jannadaadiina miyaanadna siinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmadan ka weyn baa hadhay markaasaa la odhan doonaa haa fayakshifu alxijaab deedna markaasaa ilaahay kashfigaa ilaahay iska qaadaya xijaabka fama ucطuu shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim buu nebigu yidhi ahla aljannaha lama siinin wax xaggooga looga kalgacaylo badan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala jamaalkiisa iyo kamaalkiisa daawashadiisa jannadii dhannayd bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wejigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamaalkiisa markay arkaan lidaalika culammadii rabbaaniyiintu waxay yidhaahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo ilaahay garo garashada soomaalidu ilaahay ay taqaano maaha ta la doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen soomaaligu ilaahay waa naqaanaabuu ku odhan laakiin maskiidka markuu ka baxo waxau doonu iskaga hadlay dadkeenna maanta waxaad moodaa maskiidka markay soo galaanna in la yidhaahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad moodaa halkuu kabaha ku gashanaayo ayuu diintiisiina ku reebaa war masaajidka markaad soo gasho si aad ilaahay ugaga baqayso eed muslimiinta u salaamayso eed muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee maskiidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba maskiidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan haddaad aragto aad u leedahay war meesha waa maskiida ilaahay ka xishooda soo ma nidhaahdo mid maskiidka wax ku iibinaya haddii la arkana waxa la leeyahay war meesha waa maskiida dibadda ula bax waxaad iibinaysid qof baahan haddii maskiidka laga arkana waan u naxariisanaynaa diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo eed ilaahay aad ugu nasteexayn ee nebi maxamed aad ugu nasteexayn ee a'immada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad maskiidka soo gasho aad danaynaysid eed jeceshahay eed qur-aanka akhrisanaysid eed ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culammada si fiican aad u salaamaysid ee culammada aad wax ka dhegaysanaysid ee miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee maskiidkana dadka aad ku ixtiraamaysid diintaasaa la rabaa inaad dibadda ula baxdo ma aha sheekada dibadda taalla maskiidka la soo gale bal waxaa la doonayaa diinta masaajidda inoo taalla inaan dibadda ula baxno dibadda ku muujinaa laynaga doonayaa masaajidka ayaa leh